waxaana wanaagsan daawadeen cabdijaliil show ayaad la socotaan kusoo dhawaada barnaamijkeena tiknolojiyadda oo ah barnaamij aalaba aan ku egna amuraha tiknolojiyadda ee dunidan saacadba saacadda ka dambeysa xogo la yaab leh oo la xiriira tiknolojiyadda ay kasoo kordhayaan. barnaamijkan toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa maxaa ku cusub tiknolojiyadda gaar ahaan culumta computer science-ka gaar ahaan dhinaca developmentiga amaba web applicationada. waxaa martiigu ah Axmed Diini oo ah macalin amaba bare dhinaca computer science-ka islamarkaana 28 sano ee lasoo dhaafay isagu ku shaqaynaya islamarkaana dadka baraya culumta computer science. waxa uu xarumo dadka wax uu ku baro ku leeyahay magaalada London ee cariga Ingiriiska. waxaanu kala sheekaysan doonaa culumta computerka gaar ahaan dhisidda applicationada. waxaanu sidoo kale wax ka weydiin doonaa culumta la xiriir data science-ka. waxaanu eegi doonaa cloud computer. waxaanu eegi doonaa wax kasta oo la xiriira dhinaca culumta computerka. haddii aad su'aal qabta barnaamijkan ayaan jeclahay in aanu kaaga jawaabno dhammaan su'aalaha la xiriira tiknolojiyadda iyo halka ay dunida maanta u socoto. dhinaca AI-ga ayaanu eegi doonaa. laakiin intaan barnaamijkan u guda galin oo aan macalinka soo dhaweynin saaxiibayaal waxaan rabaa in idinka codsado in aad subscribe noo saartaan kanaalkan. sida aad graafkan ka aragtaan in ka badan 60% dadka janaalkan muuqaalada daawada ama barnaamijyada daawada kaliya waa ay daawadaan waa iska tagaan naguma soo biiraan. fadlan haddii aad halkan soo gaartay nagu soo biir oo ka mid noqo dadka ku xiran cabdijaliil show. waxaanu soo gudbin doonaa barnaamijyo waxtar u leh dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. markastoo ay bataan dadka nagu xiran waa markasta oo aan idiin soo gudbina barnaamijyo tayo leh oo aad dhiirigelin noo samaysaan. fadlan graafkan waad aragtaan waxa uu aad ugu hooseeya 40% dadka nagu soo biiray ee muuqaalada naga daawada. fadlan muuqaalkan haddii uu kusoo gaara nagu soo biir kadibna barnaamijkan ayaan u gudagal. macalin waan kaaga mahad celinaya waqtiga qiimaha badan inaad naga aqbashay in barnaamijkan aad nagala soo qayb gasha. intaan u guda galin barnaamijkan oo aan jeclahay inuu xambaarsan yahay xogo badan oo la xiriira tiknolojiyadda oo waxgal u ah ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan. bal waa kuma Axmed Diini, bal ugu horeyntii soo dhow. aad baad u mahadsan tahay. waan kaaga mahad celinayaa. haddii aan sakan yar iska faalloodo magacayga waxaa la yidhahdaa Axmed Kaafi Cabdullaahi ama Axmed Diini baa la yaqaanaa. waxaan ahay senior software engineer, experience aad fara badan u leh dhinaca computerka. sanado badan kusoo jiray, shirkado badan usoo shaqeeyey, wadamo badan kasoo shaqeeyey. waxaan ku noolahay oo aan deganahay aan ka shaqeeya wadankan Ingiriiska oon ku leeyahay 2 shirkadood oo ka diiwaan gashan wadankan UK. mid academy ah oo dadka tababar siisa sida qofka uu noqon lahaa engineer dhinaca computerka ah, iyo mid software ka dhista oo khibrad siisa qofkii markii uu noqdo. marka waan gartay Axmed, waanu kaaga mahad celinayna. waxaad leedahay sida aanu ka aragnay profilkaaga iyo intaan kula soconayba wax ka badan 28 sano oo cilmigan injineernimada amaba computer science-ka ayaad leedahay. takhasuskaaga iyo waayahaagii safarkaaga bal haddii aad dib nooga celiso goormaad safarkan bilowday, halkeed kasoo bilowday, wadooyinkii aad soo martay iyo waxyaabaha kuu suurtageliyay in halkan aad soo gaartay. bal nala wadaag marka hore janigaaga. wallaahi horta hawl fudud ma ahayn. anigu waxbarashadeydii ama tacliinteydii hoose waxaan kusoo qaatay Soomaaliya iyo wadamo kale ay ka mid yihiin Kenya. tacliintii sare ilaa heer jaamacadeedna waxaan ka dhamaystay wadankan UK. aan kaga soo baxay jaamacad ku taala magaalada London. waxaan ku takhasusay oo bartay computer science, gaar ahaan waxaan aad ugu sii takhasusay dhinaca software engineering-ka. iyadana waxaan kasoo shaqeynayay waqti badan oo shirkado aad u fara badan aan kaga soo shaqeeyey. ma fududayn mataqaanaa in aan xataa digriga wadankan qaato markii aan wadankan imid UK. dad badanoo waxaa jira, anoo dhalinyaraha baan imid oo nin aad u yar ah, mataqaanaa teenager ku dhow. markii aan imid qofna dad baa kasoo horreeyey, qofna maaragtay asagoo keligiisoo single buu iska kasoo dhacaa. inkastoo qaraabo saro iyo caawisay aan helay, haddana keligay baan imid. markaan imid ujeedkayga ugu weyn wuxuu ahaa in aan xooga saaro inaan wax barto. computerkana weligay waan jeclaa oo anigoo intii aan joogay Africa ayaan mataqaanaa aad u isticmaali jiray oo waqtigaas wax YouTube iyo ChatGPT adduunyada dad lagu raaxaysanaya ma jirinin. waxaan xasuustaa wixii meesha ugu badan oo knowledge base ka helaysa wuxuu ahaa Microsoft website articleskeeda oo laga akhrisanayo mataqaana oo wada akhris geliyaan baashi ahayn
أنا waxaan ka hadlayaa waqtigii Windows 95 lagu jiray ma fahant maartay Windows 98 iyo Millennium iyo waqtigiisi baan ka hadlayaa marka ka bacdina maaragtay waxaan ku bilaabay database programming waxa la yiraahdo oo Access Microsoft Access iyo Visual Studio Visual Basic waxa la yiraahdo ka bacdi markii aan Ingiriiska imaadayna waan sii watay oo jaamacad baan dalbaday laakiin waxaan ku qasbanaaday inaan shaqeeyo habeenkii oo full time ayaan shaqayn jiray weligay waxaan isku dayi jiray anoo dhalinyaro ah bal maaragtay inaan investigate aniga oo aan nafsadeeda mataqaanaa investment isku sameeyo xataa intaan jaamacadda dhiganayo shaqo professional aan samaynin waxaan ka shaqaynaysaa mataqaanaa warehouse iyo bahalka even within the warehouse dadka qofku hadduu qof dhalinyaro ay yahay waxaa muhiim ah inuu hore issii geliyo mushaarkaaga muxuu ku bilaabanaya markaas wuxuu ahaa minimum wageku wuxuu ahaa 3.5 buu ahaa ma garatay pounds lacag aad u fiiro yar bay ahayd haddana adoo isla warehouseka ka shaqaynaya haddana waxaad kusii fikraysa waxaad isleedahay bal dadkan kaasii horeeya sidee bay ku gaareen 4.5 see ku tageen markaas waxaad fiirinaysaa waa inaad investigate waa inaad investigate forklift qaado mataqaana high reach qaado license-keeda haddana shunting license qaado haddana lorry qaado license-kiisa haddana mataqaana kor u soco mushaarkaaga ilaa uu ka gaaro 17 mataqaana 0.5 adoo especially weli shaqo professional aan haynin laakiin still inaad ismaal gelisid ayaa muhiim ah taas habeenkii oo dhan baan shaqaynayay oo ama warehouse baan ka shaqaynayay at the same time jaamacaddiina waa dhiganayay full time waxyaabaha igula yaabka badnaa waxay ahayd anigoo mataqaanaa 8 saacadood 9 saacadood habeenkii soo shaqaynayay ayaan haddana jaamacaddii aan dhiganayo full time dhiganaya waana computer science wax ka dhib badan ma lahan haddaadan support haysanin hadda computer science ku aad dhib badan ma qofku inuu barta ma jirto sababtoo ah codekiiba partially waa lagu qorayaa ama waa lagu saxayaa ama qof dad badan oo aad caawin kartid caawin aad weydiisan kartid baa jira balse waqtigaas aad buu u dhib badnaa dhibic yar hadday meel kaa gasho waa inaad library-ga aadaa buugaa ka raadisaa google iyo waxaas ka raadinaysana ma jirinin marka waxaan sameeyey waxaan xasuustaa one point anigoo full time soo shaqeeyey full timena maaragtay jaamacadda dhiganayay maalin baa waxaan lecture baan ku jiray macalinka waan u jeeda daalkii baa iga batay waa qof 4 saacadood ama 5 saacadood keliya seexanaya ma garatay inta kalena mataqaanaa shaqaynaya ama wax baranaya isboosh garaynaya sacrifice badan bayna u baahan tahay waxyaabo fara badan oo jeceshahay inaad mataqaanaa ka qaadid faraha macalinkii lecturerkii hortaagan oo wax ii sharaxaya every word uu ku hadlayo oo English ah waa fahmaya balse isku qabashadii inaad isku qabto ay macno sameeyaan ba dhib ay kugu noqoto maskaxdii baa daalan processingkii mataqaanaa samaysay waxay ahayd tabo 4 sano oo rafaado silca mataqaanaa baa ku soo maray shahaado first class degree aan ka qaatay weligeena aniga waxaan ahaa qof dadka mataqaanaa waxbarashada aad u jecel oo especially computerku aad buu mataqaanaa ii caawin baan u jeclaa inaan barto marka adigu waxay ahaataba waqti badan iyo dhib badan baan ka soo maray laakiin eventually waan ka qalin jabiyey oo shahaado computer science oo mataqaanaa bachelor degree baan samaystay kadibna waxaa dhib noqotay inaan shaqo helo waxyaabaha ugu dhibka badan doesn't matter haddaa xataa first class degree haysatid wadankiina aad ka tahay mataqaanaa ajnabi aad ka tahay links badan iyo network badan baa kaa maqan sida hadda wax u fudud yihiin uma fududayno qofka keliya software engineer aan aqaano xataa jaamacaddeeda wax iga sarreeyay ma jiro wallahi waxaan xasuustaa 3 days baa cilad i haysatay 3 days meel yar oo dhibic igaga jirtay album waxaan dhisayay java aan ku dhisayo programka final projectgayga ahaa 3daas maalmood waxaan la rafanayay inaan helo ciladaas bal inaan helo qof kale iga sarreeyo senior hadduu fiiriyo waxa laga yaabaa in dhaqso ku arki lahaa qof aad weydiinaysid male qof kale mataqaanaa ama Soomaali ama taqaanido network aad leedahay ma jiro qofka ugu sarreeyo meesha waqtiga joogana waxaan ka hadlayaa 20 sano ka hor ku dhawaad ma garat aniga way bas ma give up garaynin madax xanuun musqusha tag u soo noqo u soo qade u soo cashee soo tag wax walba soo kac seexo aakhirkii ciladii meesha ku jirta hal waana hal dhibic oo meel khaldan iga gashay aanan ogeyn ma garat waxa madax xanuunka igu riday balse qof kale uu give up garayn lahaa marka ujeedku waxa weeye inuu qofku aadan give up garaynin inaad aamintid inaad target lahaatid inaad targetkaas tiigsatid ma garat marka
ujeedkayguna wuxuu ahaa weliba hadda waxyaa dad badan oo waxaa jira inta isoo waca yidhaahda mataqaanaa jaamacad baan rabaa inaan dhigto mataqaanaa iskuul baan rabaa inaan computer baan rabaa inaan barto maxaa noqonayaa ii sheeg waxyaabaha la kala noqonaya meeqaa mushaar la kala qaadanaya inta misaysaan tahay anigu sanadka labaad anoo dhammaynaya yaanan ogeyn waxaa noqonaya sanadka labaad jaamacaddan dhameeyey sanadka saddexaad wey waxaan noqonayana ma aqoonin qof iisii sheegay ma jiro maxay qaadanayaan waa meel mugdiyan iskaga socday ma garata ilaahayse waa igu guuleeyey aakhirkii waan qali jabiyey waxaa dhib noqotay inaan shaqo helo sababtoo ah waqtigaas recession iyo waxaasaa lagu jiray ma garatay marka waxyaabaha qisooyinka cajiibka ah oo aan sameeyey waxay ahayd central london oo dhan baan ku wareegay waxaan raadinayaa CV-ga markaas digital ahaanna waa usu samaysan kartay waraaq ahaan usa qam CV-ga soo daabacanaya marka cilada waddankan UK jirta waxaa weeye qof kasta sharci waxaa jira slavery act mataqaanaa qofka inuusan lacag la-aan kugu shaqayn karinin qofka inaad wax siisaa haddii ou lacag la-aan kugu shaqeeya waxay la mid tahay slavery kugu dacweyn karaa ma garata inuu qofkaa bahalka yahay waxaa kaloo jirta iyadana insurance xafiis kasta qofkaas iskama fadhiisan karo waa inuu qofka insure garaysan yahay marka shirkadii waxa anigu aan leeyahay aan ku leeyahay waxaan inta untaga waxaan leeyahay walaalow lacag kaama rabo centralna wareegis ha lacag kaama rabo waxaan kaliya kaa doonayaa in aad fursad isiisid aan tiimkaa kaga mid noqdo si aan uga barto ayaga cilmigii aan uga barto u iraahdo CV-gayga aan ugu qoro shirkadaasaan u shaqeeyey mataqaana experience khibradaasaan leeyahay sababtoo ah digreegayga waxa waa tari la'yahay waxa igu interview kasta 30 interview mar waxa ay hortaagan waxa way mid walba horey ma u soo shaqeyso oo haddaadan fursad isiinin goormaan soo shaqeynaya waxa ugu dhibka badan waxa ahayd midaas aakhirkii adigu waxaan ku guuleystay meelo badan baan tagay shirkad walba waxay leeyihiin no insurance-geena ma ogola policy-geena ma ogola mataqaana hadda shaqaale uma baahnin bahalkii markii dambe mid Nigerian oo meel xafiis software development leh baa u tagay markaas korniyo wadanin Afrikaan oo fahmayo bal caawiyo experience-ga isii ma garata hawshan intaas interview aan soo maray bahalkii aan soo maray wuxuu yiri listen adigu hadda isdabaraysid anigu budget ma haya haddaad isdabaraysid anigu waxaan deganahay Enfield asagana wuxuu ku yaalaa Battersea gadaasheeda ma garata bal Patnelly ku yaalaa waa ugu yaraan transportation-keeda keliya aad ka bixi karinin waa central london ilaa qaali ay tahay mataqaanaa tikidkeeda tareenkeeda waxaan ku qasbanaaday in aan transportation mode-kayga bedelo oo mataqaanaa aan mooto iibsado ma garatay si aan kama bixi karta kharashkiisa iyo bahalkii ma garatay mootadu waa ka raqiis riskigeedu ha badnaado london ha aado laakiin way ii fududaatay way ii socotay 3 bilood markii aan ninkii u shaqaynayay oo software-kii aan la dhisayey ayaa interview-gii ugu horreeyay oon aaday ayaa wuxuu ahaa maaragtay interview ugu horeeyaan galaba waxaan ku yiri listen subax walba waxaan ku noolahaan ku yiri maxaa la yiraahdaa Enfield baan ka soo tagaa xaggaasaan u imaadaa shaqo waxay ahayd adigu markaas Java developer baan ahaa waxaan ku bilaabay back end development aan ku bilaabay marka ninkana Java back end-gan waa u dhisaa front end-gan waa u dhisaa markaas waqtigaas waxaa socon jiray wax la yiraahdo JSP JSF iyo systemyo oo front end-ga lagu dhiso kuwan hadda jiray mataqaanaa React iyo Angular aan ahayn oo pure Java Java adigu aakhirkii waxaan ku iri interview-ga ugu horreeyay 3 bilood aan ninka hadda u shaqeynaa shilin waxna ma weydiinin shilinna uusan mataqaanaa isiinaynin anigu aan isdabarayay bas laakiin wax badan baan ka bartay waxaan ka bartay sida waxa markii hore ogaa in waxa aan jaamacadda ku soo barto dhanba theory bay ahaayeen wixii marka una asaga u tagay yaa waxa ogaadayba waxaan dhanba wixii aan inaan mataqaana dhismo labaad oo iyo waxbarasho kale ay ii socoto bas kuwiyaan u tagay interviewgii waxaan ku ereynayahow anigu ninkaasaan u meeshaas shirkadaasaan u shaqeeyaa shilina kama qaato ma fahamtay subax ilaahay keeno 9 baan tagaa baan ku iri ma garat hal daqiiqadna ma daaho 5 markay shaqada dhameeyaan baan la dhameeyaa ma fahamtay shilina kama qaato intaas oo waxyaabood waxaan u dhisayaa inaan mustaqbalkayga marka wuxuu yiri ha marka su'aashii weydiiyay waxay ahayd haddaan shaqadan ku siiyo maxaad guarantee siin kartaa inaad noqonaysid qofka sida CV-ga qof CV-ga qof fiicanaad maxaad siin kartaa guarantee inaad qofkaas noqonaysid markaas marka aan sharaxayaan leeyahay lacag la'aan baan ku shaqeeyaa adoo mushaar siinaya
miyaa leedahay oo meel weliba ka dhow degan oo central london degan asagoo south london buuba degan yahay anoo north london ka imaaday baan maaragtay markaasuu yiri okay fursadan oxygen marka shaqadan laftigeeda 10 qof baa u tartamaysa waa ku helay waa shaqadii igu horeysay markaan helay oo aan adigu dhowr bilood u shaqaynayay yaan ayadana waxaa dhacday shaqo kale oo waxaa la soo xayeysiiyey tan ka fiican 6 bilood markaa tii u shaqaynaya si fiican si fiican wax ugu bartay oo dowladdu ay leedahay oo shirkad waxaa jirta dayax gacmeedyada iyo satelliteska u samaysay UK oo STFC la dhahaa waxay ku taalaa Didcot Oxford agteeda ku taalaa shaqay soo xayeysiiyeen oo adigu engineer dhisaya softwarada dayax gacmeedyada iyo lagu shubay waxaas iyo dhisaya bay soo xayeysiiyeen tiiba marka waxaan sameeyey waan apply garaystay markaan apply garaystay waa shaqo mishaarkeedu badan yahay ka fiican yahay tii hore laakiin markaan tagay waa hal boos waxaan meesha ugu tagay dad gaaraya 40 oo qaarkood ka imowda cadaan ah waa shaqo dowladeed marka waxa weeye process badanaa la maraa ilaa 5 step baad maraysaa camal baad maraysaa 5 maalmood loo soo kala noqonaya oo interviewga maalin walba aad soo noqonaysid London ka tagaya ilaa Oxford baan ku tagaya marka waxa u badnaa dadka meesha fadhiya aniga iyo mid Hindiya iyo mid Chinese maahana inta kale cadaan wada indha buluuga ahaayeen wadankan u dhashay mantaqaana Ingiriisa qaarkood badankood Oxford ay ka imaadeen because Oxford u dhaweyd iyo Cambridge labadaba anagu jaamacad Middlesex ku leeyahay oo London ku taalan ka soo bax bas interviewgu igu horeeyay yaan tagnay marka guriyay ku dejinayaan meelaad degaysaa dhowrka maalmood oo interviewga mantaqaana iyaga hotelka wax dhan ka bixinaya cunada iyo bas markii aan meeshii tagay shaqadii kala fasax ka qaatay bas meeshii markaan tagay interviewga igu horeeyay naga qaadeen waxay qaadeen adigu wax la yiraahdo abstract reasoning iyo oo sawirra mataqaana isku aadaadinaysid iyo waxay fiirinayaan critical thinking iyo waxaas abstract reasoning kaaga iyo waxaas fiirinayaan inaad mataqaana qof IQ-giisa xoogaa wanaagsan yahay inaad tahay bas adigu kii waa isku aadiyey wax waa ku baasay and then groupkii interviewgii labaad la igu yeeray oo coding ah kaas shaqadeeda ahayd waa ku fiicnaaba so codingkii si fiican baan u sameeyey waa iska fududaa and then interview kale ay igu yeereen oo adigu maaragtay wax la yiraahdo group work dad badan bay soo ka ballaminayaan oo cadaanka iyo kuwa anaga ah group baladii qaybinaya markaas waxa lagu leeyahay waxa dhistaan projectiga sameeya marka wararka qaarkood wax simple ah waxa lagu leeyihiin mataqaana anaga waxay nagu soo aadiyeen diyaaradan mataqaana yaraysan loo tuuraya maaragtay waraaqaha laga sameeyo bay waraaqa la siinaya markaas waxa lagu leeyahay diyaarada iyo maraakiib ka sameey ana Soomaaliya waxa xasuustaa diyaaradaha maraakiibta baan ku sameeyay jiray mar alaala markii wixii la soo dhigaa waxaan dhageysta ana ma ogiba ilaa ma ogiba waxaba ayagana maxay fiirinayaan markii team la gariyo qofkan team player ma yahay wax contribution ma sameynaya haddana meesha waxay ka dhex baarayaan qofkan team leader ma noqon karaa qofka ugu mantaqaana ugu fikradda fiican oo keenaya oo dadka isku xiraya kan ka dhageysanaya waxaan ka dhahay qofka maya marka maadaama project aniga waxa ku soo takhasusay ayadoo waraaqii doomahan ka sameyn jirnay baashi ahayd ana irbal dhadhadhag waa tusay mid walba surprise baa ka soo haray orsay u sameysay markaasa diyaaradii iyo markabkii iyo wixii baan sameeyay markaas la yaabeen markaasaan ku yiri taan weeye kan saana u sameynay marka ku daawanayaan kuwa kalena boorka banaanka daawanaya fiirinayaan ma garad bas adigu interviewga waa sameynay kabacdi waxa la sameeyay leedahay interview kale waxa ku jira marka intershada caadiga ah interviewada caadiga ah oo hadda waqtigan oo kale camalay saa uma dhibadna laakiin waxyaabaha dawladdu waa dhibadan yihiin mataqana steps badan oo in sharciyo badan bay maraan bas interviewgii kale afraad baan galnay oo asagana presentation baad sameynaysaa TV-ga waxa lagu soo bandhigayaa PowerPoints-kaaga iyo waxaa soo sameysanaysaa halkaasaad ku present garaynaysaa projectiga waa sameeyey adigu waxay ahayd taba kii ugu dambeeyey oo panel interview ama board interview waxa la dhahay sameynayaan oo ilaa 10 qof camalba halkaas safan keligaaba halkaan soo taagan markaas su'aalo lagu weydiinaya technical ah iyo kuwa aanan laba xiriirininba mataqaana wax fieldiga ay ku jirto kaliya ay ku fiirinayaan communication-kaaga iyo sida wax u soo gudbinaysid iyo inaad qof mataqaana wax fahmaya tahay adigu aakhirkii waa dhamaystay taa markaan waan iska soo tagay waxaan ka shalnay 5 maalmood oo meesha aan ku bixiyay sababtoo ah Chinese aan ku badan mataqaana aan ku badan karaba ma haystaba ama wixii aan ku heli kara sababtoo 40 qof ku dhawaad ba anigoo Afrikaan ka ah oo intaas qof meeshaas mataqaana bas maalintii dambe baa la soo wacay
week kadib waxay yidhahdeen imaw meesha marka imaw dhan waa ugu imaaday waxay dhaheen congratulations booska adigaa helay anuu amalaysan waaye sidaa ku dhici kartaa hal boos oo intaas qof u safatay see adigu ku heshay bas adigu marka waxba ma dhihinin waa iska aamusay markii managerkii line managerkii iga sarreeyay markii aan cabaar la shaqeeyay waxaan ku weydiiyaa adigu dhowr week ka bacdi waxaan ku yidhi shaqadii maalintii aan helay sidee ku helay dad mataqaanaa bahalkii marka waxaan ka raadinayaa inaan si toosa u dhaha ma rabo mataqaanaa bahalkii niman caddaana joogay maxaa caddaan kuu siin weysa ninka afrikaanka u siiseen ma garatay sidee ku helay markaasuu yidhi you know all the testskii dhan and you scored the highest you dhahay ma fahantay and the board were very impressed with you and everything laakiin wuxuu yidhi qofkii u fiicnaa baad noqotay marka cadaalad weeye buu yidhi inaan ku siino inaad booskaad xaqa u leedahay waa anagu equal opportunity baan nahay qofna mataqaanaa gooni nooma xigo wiilkayga hadduu joogo xataa haddii aad adigu sarraysa adaan ku siin lahaa marka bahalkii ilin baa igu soo dhawaatay dhinaca cadaaladda markaa ka fiiraysa mataqaanaa hadalka ninka siduu igu dhahayay oo igu sheegay sababto ah Africa ama Soomaaliya meelaha qaarkood waxaan hubaa xataa processkaasi lama mareenba nin walbaba mataqaanaa kanugu in adeerkiis buu siin lahaa goormaad bilowday in aad noqoto dadka bara cilmigan computer science-ka waayahaagii safarkaagii haddii aan halkaas kaga soo gudon bal goormaad barta hadda waxaad tahay CEO-ga fast track technology academy ayaad bartaa hadda oo aan xaruntaada dhowr jeer arkay goormaad bilowday in aad adigu si rasmi ah macallin u noqoto aad bara u noqoto horta weligay anigu baritaankan waa jeclaa anoo yar baan waxaan xasuustaa luqadda ingiriishkaan bari jiray even Africa marka aan joogay dhinaca computerka markaan ka hadlayo ama computer science ama software engineering ka hadlayo anigu shaqooyin badan baan soo qabtay oo waxaan soo noqday front end developer oo web applications samayn jiray mobile app developer baan soo noqday oo mobilada applicationada aan radisi jiray sida I don't know inaan maqasheen dad badan waxaa laga yaqaanaan applicationkii Somali app anigaa sameeyey oo Somali app kaliya maahan Ethiopian app Kenyan app wadamo badan bay mataqaanaa intaas dhowr milyan oo qof baa ku xirnayd ma garatay oo isticmaali jirtay very popular application ahayd waqtigii WeChat soo baxay la soo baxday maaragtay mobile app baan noqday backend developer baan noqday system administrator baan noqday oo hadda mataqaanaa adigu waxa ama developerka iyo operationska marka la isku daro DevOpska loo yaqaano all areas baan ka soo shaqeeyay marka waxaan helay in cilmi ah in aniga keligay aan wax dhisi karo magaratay iyo tababarna aan samayn karo marka adigu tababarkii ugu weynaa waxa shirkadda aan u shaqaynayay adigu junior baan ugu dal aakhir shirkadii aan soo shaqaynayay aakhirka adigu senior baan noqday marka internal training baan ku bilaabay oo ah shaqaalaha staffka oo dadku shirkaduhu soo kireystaan inaan tababaro ayaan ku bilaabay UK in badan baan ka sameynayay Dubai-na waan ka sameeyay oo Dubai laftigeeda xataa waa ka soo shaqeeyay shirkad bangi baan uga soo shaqeeyay mataqaanaa UAE ku yaala oo adigu waqtigan hadda waxaan mataqaanaa loo yaqaano smart contracts iyo waxa adigu ay u yaqaanaan bahalkii blockchain applications that is u dhisayay marka xaggaasna waan uga soo shaqeeyey marka oo tababar badan baan kasoo sameeyey kadib markii halkan covidkii uu dhacay yaan waqtigii guriga aan iska joogay yaan waxaan diyaariyey curriculumyo iyo tababaro videoyaal ah maaragtay oo adigu Dubai baan marka hore ka shaqeynayay UK baan kusoo noqday Dubai baan ka shaqeynayay UK baan kusoo noqday markaan UK imaaday baan waxaan bilaabay inaan fikrad ah waxa igu soo dhacday in aan sameeyo training sababta dad badan baa guriga iska joogay adigu marka content baan diyaariyey af English iyo af Soomaaliya oo dhinaca software engineering ah research badan baan sameeyey shaqooyinka waddankan UK looga baahan yahay iyo sida ugu dhaqsiyaha badan ee qofka uu ku noqon karo waqtiga ugu gaaban uu ku noqon karo sababtoo cilmigan aniga hadda jaamacadda aan kusoo dhigin wuu ballaaran yahay laakiin qasab maaha inaad isagoo dhan wada baratid jaamacaduhu basicgii bay kaa barbarayaan in yar bay kaa siinayaan laakiin waxaa ka fiican in hal qayb oo ka mida inta aad qaadatid sida masalan web development oo kale ama backend development oo kale ama cyber security oo kale ama data science oo kale inta hal qaab inta pick up garaysid in aad xoogga saartid marka sidoo kale camal hal qayb oo ka mid ah web development la yiraahdo pick gareeyay waan wixii baan geliyay shaqo badan iyo waqti badan baan geliyay
aakhirkii marka waxaan sameeyey web developmentigii ayaan waxaan ku sameeyey in aan dadkii online ka baro markaas onlinekii markaan ka baray popular bay noqotay kadib meel baan furay oo iskuul baan furay iskuulkii baa sii weynaaday marka ka hor waxaan lahaa shirkad software ka samaysa ma garat oo Lul Solutions la yiraahdo oo contractyada anaga ku qaadan jiray xafiis baan waxaan ka furtay Pakistan iyo Borame oo waqtigaas mataqaana iyo ka horba aduu 5 sano ka horba dhalinyaro fara badan oo jaamacadda Soomaaliya waxaan isku dayay horta India marka hore ka furtay adana Pakistan baan ka furtay adana waxaan waqtiga waxaan ka hadlayaa waqtigii Soomaaliya baan dhisay iyo aduu 12 sano ka hor Soomaaliya marka xamar iyo jaamacadaheeda iyo iskuulada adigu teknolojiyada marka aad khatar ugu ma ahayn laakiin jaamacad Camuud la yiraahdo waxa jirtay bari jirtay oo Boorama ku taalaan u maleynaya dhalinyaro fara badan oo xagga joogto yar Maxamed Cilmi la yiraahdo iyo nin Amiin la yiraahdo iyo baa ku jiray ma garatay ayagii baan marka ila soo hadleen oo yiraahdeen mataqaanaa yahow waxaan doonaynaa inaad أنا هكتد in Soomaali bas ayagii baa marka aan xafiis baan xagga uga furnay wixii bay ila sameeyeen internetkii waxaan ka bixin jiray mashaariir yar baan siin jiray adigu wax weyn bay sameeyeen nimankii yaryaraaye mataqaana aanan meel fog gaarsiisnayn markii aniga ila shaqeeyeen oo waqti badan aan shaqeeynay oo systemyadii oo dhan ba ayaga la wareegay ayaga maamulay ma fahant oo aad wax badan bay u qabteen hadartan niman oo senior engineer waaweyn waa nimanka amiinka lagu sheegay waa ninkan mataqaana wasaaradda buu u sameeyaa waxbarashada maaragtay Soomaaliya ninka systemyadooda wax ka qayb ka dhisay oo team ka dhisay buu ka mid yahay Maxamed Cilmi waa asaguna ninka application badan sameeyay group badan aad u fara badan aan soo tababaray marka waxaan xooga saaray mataqaana inaan tababarkii iyo wixii diyaariyo adigu ujeedkaygu wuxuu ahaa kambe shirkadan software ka samaysa ama hindida shaqaalaha ama Soomaalida ay shaqaysa iyo midkan maaragtay training ka bixinaya in aan sameeyo adigu UK baan ka diiwaan geliyay education academy ahaan u diiwaan geliyay waxyaabo fara badan baan u sameeyay kadib waxaan bilaabay inay training dadkii sameeyaan group dad aad u fara badan baan tababaray kadibna markay tababarteen oo 6 bilood oo training aan siiya 6 bilood training marka waxay galayaan shirkadii kale software ka sameynaysa marka teamkii lagu dhex tuuraya oo mentoring iyo waxaas u sameynaya waxay sameeyeen wax la yiraahdo pair programming iyo shadowing oo ah qofkii inuu fiirsado marka hore ka bacdina inuu qof kale oo senior ah oo shaqo sameynaya oo la maqdo marka it's not just the code la sameeyo ma ahan waxyaabo fara badan oo waxa jirta sida project management iyo waxyaabo aad u fara badan baan sameynaa oo qofku wuxuu maleynayaa coding baan baranaya code kaliya la qorayo ma ahan waa sida guriga marka la dhisayo kale loo maamulo oo mataqaana procurementigiisa project managementigiisa looga fakaro health and safetygiisa waxaas dhan looga fakaro ayaa code ahaana markaad project sameynaysid loo dhisaa oo qaab xataa la isku maamulo project management iyo sida mataqaana agile project management waterfall project management even within agile ka scrum mataqaana iyo kanban iyo waxyaabo fara badan baa jira oo qaabab gooni ah oo ah dhinacii codekii laftigiisa si marka mataqaana loo xanaaneeyo deploymentigii maintenancegii testingkii waxaas oo dhan gidi waxyaabo aad u fara badan weeye bas waxaas qofka markii uu barto oo aan soo training soo siino dhowr bilood markuu adigu 3 bilood 4 bilood camal ku jiro dhinaca shaqadan wixii uu nala sameeyo wuxuu dhan uu fahmo ayaa waxaan sameynaa CV-giisaan diyaarinaa LinkedIn-saan diyaarinaa shaqa u raadinaa bas adigu sidaa markaas ka bacdi buu qofkii maaragtay shaqo ku helaa adigu interviewga laftigiisaan ka caawinaa oo su'aalihii interviewga inta badan looga baahnayo dhan ama lagu weydiin karo dhan baan u sii diyaarinaa waxaan kaloo sameynaa markii qofkii uu shaqada helo waxay inta badan geliyaan dadka 6 bilood oo waxay yiraahdaan preparation period bay geliyaan oo ah ay tijaabinayaan in 6daas bilood uu dhaafo laftigeeda support baan siinaa oo waxyaabo dhan marka waxyaabo aad u fara badan marka saasay ku timid internal training bay marka hore hawsha ku bilaabatay oo shirkadaha uu sameyn jiray marka waxaad wax bartaa caruurta u yar 4 sano ilaa iyo 8 sano waxaan leenahay dadka waaweyn labaduba dadka waaweynna waan barnaa caruurta yaryarna waan barnaa kids coding programs aan la haysanaa hadda waxayba sameynaba wax la yiraahdo future engineers program oo ciyaalka haddaan tababarnaa sababtoo ah markii hore si in yaroo si fudud baan ku bilownay ilmaha 8 sano da'dooda ilaa 14 sano u dhaxayso class coding aan ku bilownay wadankan say u baraan
yaan marka hore ku bilaabnay oo waxaa la yidhaahdaa ciyaalka waxay aaminsan yihiin inay busy yihiin inay maskaxdooda wax badan aysan qaadi karinin in tartiib loo quudiyo wax loo siiyo marka waxay dhahaan block programming ama scratch wax lamid ay jaamacadda iskuullada ka dhigaan oo hadda codingkii xataa laftigiisa iskuulladii baa lagu soo daray laakiin asagio toosa kuma ay soo darin qaarkooda markay xoogaa secondary gaaraan bay waxay u bilaabayaan python iyo wax lamida tartiib laakiin iskuullada hoose oo dhan waxay sameeyaan wax oo conceptigii codingka sida loopskii iyo wax lamida bay qaab ilmuhu fahmi karaan oo cartoon ah bay ugu sameeyaan bes markii aan ku bilaabay waxaan arkay ciyaalkii oo boring ku noqday wixii sababtoo ah wax macquula waxa way samayn weyse markaas waxaan ku yiri bal ku tijaabi codingka caadiga ah oo saxda ah oo aad samaysaan ku tijaabi ciyaalkii markaa codingka ku tijaabiyey waaba ka heleen waa mid walbaba dhag wax khatar bay ku noqdeen within hal sano gudaheed systemka teamkii codingka samaynayay ee applicationada waaweyn dhisayay bay bilaabeen inay caawiyaan oo system qaar baa waxay dhisteen applicationno ayaga gooni u ah weliba mid yar oo hadda 11 sano jira application Soomaali u sameeyay translator ah oo mataqaana qofku uusan u baahnayn asagoo ka faa'iideysanaya ChatGPT iyo artificial intelligence laakiin ka faa'iideysanaya ma garad buu xataa application turjumaan u sameeyay waana 11 jir ma fahanta marka bes adigu waxaan sameeyaa markii ay soo weynaadaan xoogaa oo 14 sano soo gaaraan baan waxaan u dalabnaa wax la yiraahdo apprenticeship qaarkoodna waxaan u dalabnaa sponsorship qaar baa ayagoo yaryar mid ka mid hadda waxaa qaatay shirkada baa sii qaadanaya oo sii tababaranaya shirkada waaweyn markay arkaan ciyaalkan waxay sameynayaan arkaan la yaabaan bay ayagu mataqaanaa sii tababaranayaan kuwa xoogaa 16 sano 17 sano soo gaaray ilaa 18 sano jira oo ama adult ahaan u soo join karayaan ama kid ahaan dhinaca ka imaadaan ayagana waxaa jira program dadku ma oga wadankan hadda ciyaalku waxay dhaceen ku yar ilmahooda teenage-ka hadda soo gaaraan heerka jaamacadda soo gaaraan UK waagi hore jaamacaddu free bay ahaan jirta laakiin hadda qaarna dadku waxay uga caranayaan lacagta qaaliga ah ugu yaraan adoo 30,000 ama 40,000 lagugu leeyahay deyn oo waxbarasho keliya ah yaad ka baxaysa anigu waqtigan dhiganay free bay ahayd ma garato jaamacadda free aan ku dhiganay iyo weliba deyn kaloo dheeraada ay sii qaataan marka adooba qaamaysan oo 100,000 ku dhow lacag mataqaanaa haddaad mid aad ku noolaato qaadatid iyo midii waxbarashada keliya 35,000 ilaa 40,000 ku dhow ma garad yaad ka baxaysaa marka dad badan oo dhalinyaro badan baa hadda ii yimaadeen oo yiraahdeen waxay yiraahdeen jaamacadda ma rabno inaan galno ma fahanta vacation waxaan rabnaa inaan sameyno koorso bahalkii ah bootcamp inaan sameyno aan shaqo ku helno ma garatay way taa ma samayn karnaa marka aniga inta badan waan ku caawiyaa oo waan iraahdaa laakiin laba qaab baa jirta oo loo sameeya apprenticeshipska ma fahanta mid waa full apprenticeship oo 2 sano training oo full aad galaysaa dowladda lacagta bixinayso 95% sababta dowladdu waxay rabtaa dadkii waxa ku yaraaday wadankan injineeradii ku yaraaday dhinaca software-ka ah iyo dhinacii mataqaanaa baa ku yaraaday marka waxay ka dalbadaan dibadaha oo Pakistan iyo India iyo meelahaasi ka soo recruit gareeyaan marka waxay encourage gareynayaan in skilled waxa la yiraahdaa skills ama shaqooyinka skillska ay ka mid tahay oo wadanka shortage ka yahay in ay sameeyaan marka qofku mushaarkiisa dowladda bixinayso laakiin waa inuu shirkadu u shaqeeyo helaa taas marka shirkadaas waxay bixinaysaa 5%. Shirkadaha qaarkood hadaysan awoodinin wax level yiraahdo waxay ka dalbanayaan shirkadaha waaweyn oo waxa jira allowance inta la siiyo allowance-gooda aan dhamaystirinin ay ka dalbanayaan oo wadankan bas adigu labadaas sano waxa weeye dadkan labadan sano qofka markuu tababarto oo shirkadan u shaqeeyo oo mushaarkiisu dawladdu bixiso ilaa iyo I think range-ga inta badan ay dawladdu bixiso waa 20,000 ilaa iyo 40,000 lacag gaaraysa inta u dhaxaysa mushaarku shaqeynayaan wadankan UK lacagtiisa kadib labadaas sano markay u dhamaato shirkadu ama ayada qaadanaysa ama uma baaramnin 2 sano experience haystaba asaga shaqo kale raadsanaya ma fahant nin 2 sano experience uma baahna asaga shaqo kale raadsanaya waxaa ku soo haray dad yar waxa kuwa yar waxa jira anu inta badan waxa aad ku encourage gareeyaa in ay qualification weyn oo sida university degree oo kale dadku qaataan marka hal option baa jira oo ah waxa la yiraahdaa degree apprenticeship oo ah shirkad adoo u shaqeynaya oo ay mushaar ku siinayso iyo haddana jaamacadii laga bixinaya waxaas oo dhan dawladda diiwaan lacagteeda bixinayso
adigu shil ma bixinaysid shirkaddan lacagtay ku siinayso boqolkiiba 95 dowladda bixinaysa 5% laga yaabaa in aad ku siiyaan jaamacaddiina free bay ku tahay oo waxaad ku dhigatay bahalkii marka to get that program and easy ahayn especially when it comes to software engineering that's why marka dhalinyarada markay noo yimaadaan inta tababarno oo aan diyaarino yaan degree apprenticeshipka u dalabnaa kadib ayagaa qiimeynaya markay arkaan qofkan ilmo yaroo dadaalayo khatara inuu yahay ama dhow 18 jir ama 19 wuxuu doona ha ahaado ba marka mataqaanaa bahalkii sidaas marka mataqaanaa ku helaan apprenticeship dhowr ba hadda midkii ugu dambeeyay wiig ugu dambeeyay uu galay oo hadda shaqo bilaabay oo ku sameeyay channelka YouTube aan ku leenahay FST Fast Track Technology Academy hadda ka fiirsid waad arki doontaa isagana dad badan oo aan soo tababarnay baa ku jira baashiya okay aad u mahadsantahay dhinaca kale dadku waxa laga yaabaa wadankan dadba iyagoo waaweyn soo gala oo da ku soo gala dadba iyagoo dhalinyaro soo gala oo iska doorbida in ay xamaali galaan warehouse galaan darawala noqdaan dadkaasi ma isleedahay xitaa haddii aad weyn tahay oo hadda aad Soomaaliya kasoo gashay weli waxaad haysataan jaanis aad wax ku barataan ma aaminsantahay dadkaas aad iyo aad xaqiiqda waxbarashadu horta ma taqaanaa yaraan iyo weynan midna ma lahan horta muhiimadu waxa qofka maskaxdiisa wuxuu fahmi karaa qofka haddii maskaxdiisu uu isleeyahay weli waad baran kartaa fursadihii waddanka waa yaalaan ma garatay cilmigana khasab xataa mararka qaarkood looma barta keliya inaad shaqo heshid ma garatay nin baa hadda maalin ayaan dhawata yimid wuxuu yidhi adeer waxaan rabaa inaad tababartid oday weyn weye mataqaanaa ugu yaraan I think 60 aan ku qiyaasaya markaasaan ku iri okay waa yahay waa ogahay biran anigu shaqo aan ku raadinay shaqo kuma rabo wuxuu yidhi tuulo yar baan ka imaada oo Soomaaliya meel geeskeeda ku taala ma fahanti marka waxaan rabaa buu yiri inaa inta tababartid cilmigii iyo wixii aad sameynaysan iyo wixii inta aan ka bartaan maskaxdeedu way fududahay buu yiri ma garatay ninka waa wuxuu ii sheegay inuu photographic memory lahaa markuu yaraayo nin ma taqaana maskax badan oo ahaayo xataa waxyaabaha quraanka markuu akhrinayo uu 3 marka badan intuu qoyan yahay loox akhrinayo nin aad u waana ka dareemay wuu arkay wuu ahaa markii aan siimid daqan nin aad u daqana waana 60 xogaa ku jir maxaa u baranaysaa baan ku yiri moogta markaas wuxuu yiri adeer meel tuulo yar oo Soomaaliya ku taala baan ka imid internetkii iyo korontadii baa gaartay ma garatay inaan halkaa ku retire garayaan rabaayo ciyaalka yaryar oo meesha aan ka imaaday waxaan rabaa ayagoo basekoodu dhisan yahay inaan intaa bartay aan baro ilana igu soo dhawaatay wallahi bilaa qofkaas oo kale markay aragtid ma taqaanaa hadduu heli lahaa fursad waa ka horeysa waa hore ummadda dhan wada dhigi lahaa mutacalimiin ma garatay marka waa midaas maaragtay marka dadka waaweyn su-aashaada haddaan usoo noqdo dadka waaweyn oo mataqaanaa bartay way jiraan dad badan haddaad YouTube-keena fiirisid xataa waxaad arkaysaa tusaale kuwa 40 gaaray oo inta aan tababarnay 45 gaaray kuwa 50 ku dhawaaday oo inta aan tababarnay shaqo ku helay waddankan kaga helay oo hadda software engineer ah oo aan interview la yeelanayaan dadka keli doontaa kuwa kale oo ayagana jira way jiraan weli aanan wareysanin oo aad la haddoonto marka way qofku anagu qaabka hadda bootcampka aan u samayno way ka duwan tahay qaabka bootcampyada ay u sameeyaan waddankan looga sameeyo ingiriiska bootcampyada waddanka 9 to 5 baad galaysaa qofkii hadduu shaqeynaya 9 to 5 waa subaxdiisa u gasho habeenkii baad ka soo baxaysaa full time maya marka waxaan samaynay qaab ah flexible bootcamp oo qofka asagoo gurigiisa jooga classka uu hal mar imaanayo weekii ama online uu ka soo gelayo asagoo gurigiisa joogana oo wixii baranaya shaqadiisana sii wato ma garatay wixii waagi hore si ay u adkaan jireenna uma adka horta hadda adduunkii oo dhan baa wuxuu wada noqday bahalkii maxaa la yidhahdaa technology buu noqday dadka isma oga laakiin qof walba waa technical waa mechanic isma ogid teleefonkaaga fiiri inta meelood ka taqaanid aad furaysid laptopkaaga fiiri inta aad ka taqaanid inta aad information every day maqlaysid things hadda waxaa laga yaabaa 10 sano ka hor ama dhowr 10 sano ka hor haddii lagu yidhahdo YouTube ma taqaanaa Google ma taqaanaa ChatGPT ma taqaanaa AI ma taqaanaa waxaasoo dhan inaad tiraahdo war waa maxay waxaad ka hadlaysaa Bluetooth ma taqaanaa war waxaan maxaa ka hadlaysaa laakiin waa tababaran tahay keliya dhamaystir yaraad u baahan tahay ma garatay cilmigii already waaba isma ogida adduunyadan baaba waa technology world way ku tababartayba marka dad badan bay jira aan tababarnay si fudud weliba curriculumka asagoo Soomaaliya soo af Ingiriis laakiin inta badan dadka Soomaaliga ma jecla af Ingiriiskeeda mataqaanaa adduunka dhan baa iska wada Ingiriis noqday aad wanaagsan tahay dhinaca kale bal aan u nimaano marka bal cilmigan aan dhex galna gudihiisa aan galna marka laga soo baxa waxa saad wax u bartaan iyo nolosha marka xaggaas aan kaaga soo baxna waxaad dadka bartaan web developmentiga aad bartaan bal noo sharax muxuu yahay imisuu u kala baxaa
halkee laga bilaabi kara halkuu qof ka bilaabi kara okay dhinaca horta cilmiga computer science waa dalada weyn waa computer science ma garata computer science markii aad baratid computer science-ku dhowr qaybood buu u kala baxaa iyadoo dhinaca hardware-ka ama software-ka la fiirinaya ma garatay ama dhinaca networking-ka ama dhinaca mataqaana waxyaabo fara badan dhinac loo aaday laakiin haddaad dhinaca software-ka usii baxdid software-ka laftigiisa sii kala baxa ma garatay waxa la yirahdaa dhinaca software engineering-ka software engineering-ku hadda masalan kasoo qaadba xataa haddaadan aadaninba maaragtay cyber security iyo data science iyo all that aadan aadinin oo dhinaca engineering-ka bas aad u imaatid isaga laftigiisa marka la dhisayo oo softwareka la dhisayo dhowr qaybood dhowr team baa dhista team waxay ka shaqeeyaan dhinaca front endiga oo webka ayaa la yirahdaa shirkadaha shirkad walba haddaa u tagtid shirkadaha waaweynka ah waxaa lagu leeyahay teamkaas waa teamkii front endiga teamkaas waa teamkii back endiga teamkaas waa teamkii mobile application developmentiga mobile appka laftigiisa kala baxaa native application developers ko laba qayb u kala baxaan Android iyo iOS waxaa maqlaysaa teamkaas waa teamkii Android-ka teamkaas waa teamkii iOS-ka dhinacan kale teamkan waa teamkii sys administrator-ka iyo database-ka iyo kuwii qaabilsanaa marka kuwaas waa kuwii security-ga oo systemkan oo dhan isku ilaalinayay in mataqaana markii la deploy gareeyo kuwan waa kuwii maintain gareynayay systemka oo ama waa DevOps ama waa maaragtay cloud engineers oo systemkii wixii la dhisay in la deploy gareeyo marka qofku kama shaqayn karo intaasoo team ilaa aad 40 sano oo experience leedahay mooyaane ma garatay team kasta ma gelgeli kartid laakiin waxaad samayn kartaa hal team waxay sameeyaan yaad ku biiri kartaa masalan web developmentigaas toolal gooniya iyo languages gooniya ku shaqeeyaan inaad baratid jaamacaduhu markay ku tababarayaan intaanoo team waxooda dhan ay ku barayaan laakiin haddaad markaad bootcamps ka samaynaysid hal qaybaad ku takhasusaysaa teamkaas waxay sameeyaan waxoodoo dhanba 6 bilood baad ku baran kartaa ama backend-hada ama kanahada ama hal dhinac haddaad dooratid 6 bilood baad ku baran kartaa kaas marka aad dooratid yaa haddana 6 bilood aad ku tababaratid yaad waxaad leedahay maaragtay dhinaca xaggee kasii aada work experience aan u baahanahay waa markaas marka work experience marka kala qaybinta dhinaca developmentiga bas oo software developmentiga bas waa inta dhinaca kale ee cloud engineers-ka iyo waxa la yiraahdo coderka la yiraahdo ayagu marka engineering-kan uu soo dhamaado oo software-kii la soo dhiso software-ka adduunka la qaybsada loo baahan yahay oo la tuso haddii website tahay haddii web application tahay haddii mobile app tahay waa in la deploy gareeyaa deployment waxa weeye waa in server la saaraa waa in meel adduunka oo dhan ka heli karaan la saaraa waa in meeshaas security-geeda la ilaaliyaa waa in meeshaas laftigeeda serveradeeda iyo network-geeda iyo waxooda dhan la diyaariyaa marka way isla shaqeeyaan dadka developerska ah iyo dadka operationska sameeya ama deploymentiga sameeya way isla shaqeeyaan waa markaa maqasho cloud engineer iyo waxaasi waa dadka hawshaas damba qaabilsan laakiin waxay ku xiran yihiin software development marka waxyaabo mid kale hadda waxaa jirta ayaan hore cloud engineer kalaftiisa waa bari jirnay AWS iyo waxaasi shaqooyinkiisa ha yaraaday web developmentiga ma yaraanayo laakiin cloudkii baa yaraanay wahay sababtoo waxaa weeye waagii hore waxaa jiri jiray wax system administrators la yiraahdo intaas cloud engineers ku soo bixinin oo data centerada systemyada ku deploy gareeya ma garata sys admins la dhahaa ayaga marka waa dadka masalan way baxayaan eBay bay ka soo gadayaan serverkii way install gareynayaan waxay ku sameynayaan partitioning software bay operating system bay ku shubayaan networking ay sameynayaan data centerka ay already ka shaqeeyaan waa dadka diyaarinaya systemkan meeshii aad ku ran gareyn lahayd data centeradii baa dhintay hadda waqtigii waa dhamaaday waxa oo dhanba waxaa la wareegay Google Cloud AWS iyo mataqaana Azure Microsoft la wada wareegeen the cloud adduunka dhan wada noqday nimanka shaqadoodii waa sii dhar waa burburtay ma garatay nimankii hardware-ka iyo balaayada waxaas ku shaqeyn jiray dhan cloud baa la wada aaday cloud-kii laftigiisii wixii markii cloud-kii shirkadihii cloud-ka sida Google-kii iyo Microsoft wax walba easy ka dhigeen meeshii laga rabay nimankan experience-gooda ama khibradoodii khatarta ahaydba batoonna la taabanaya ka dhigeenba ma rabta inaad server samaystay ha provision garasiya batoonkan taabo network waa kana firewall-ki waa kana deployment ma u baahan tahay waa kan saan u gal wixii oo dhanba qofka asoon computerkiisa kicin buu maanta dhan batoonta taabanaya shaqadiisa halkaas ay ku dhamaatay so marka shirkadihii way fakareen hadda anagoo kale barkan developerna waxaan samayn jiray software-kan develop gareynayna software-ki in inta la qaado aan dhamaynay la saaro server-ka la saaro yaa weegaga nagu qaadan jirtay holiday baan ku maqanahay baashu system administration ku dhihi jiray ama cloud engineer hadda ma dhahayo sababtoo ah software-kii markaa dhisid qofkii saari lahaa waaba qof DevOps ama ku ag fadhiyaba aan kaa tegaynba ma garat operations ku ag joogaba waa uu ka geenaya laakiin shirkadihii way fikireen waxay yiraahdeen waay aan ugu baahannahay laba shaqo
qofkan waa developer kana waa operation soo maha sheekadii maadaama ay easy noqoto batoona la taataabanayo ma hal qof wuxuu dhan ba sameeyo that's why sheekada marka DevOps ku timaade waa development iyo operations la isku daray so qofkii marka softwareki from beginning asaa dhisaya asaa deploy garaynaya shaqada dhan baa saa wada qabanaya marka shirkaduhu marka hadda waxay aad u raadiyaan markaa web developer noqotid inaad backend ku darsatid haddaadan backendiga aqoonin deploymentiga aan aqoonin waa dhibbay kugu taha marka waa la sii investigarayaa web development ku bilaabo backendi baro and then qaybtii operationska baro and then waxaa tahay full stack developer with as DevOps baa noqonaysaa marka waxyaabaan ku encourage garin mushaarkiisaa badanaya okay aan ka bilowno marka front-end developerada waxaa la warta language-kada badan iyo bal xaggu ka bilaabi karaa qofka raba qofku uma baahna sida anaga hadda marka hadda noo imaado kale camal waxaan barnaa basicska hoos aan uga soo bilaabnaa qofka xataa inuu computerka sida keliya waxaan u baahnaa kaliya inuu yaqaano emailkaaga ma furan taqaanaa Microsoft Word iyo waxaas ma isticmaali taqaanaa basica ma taqaanaa keliya marka intaa sameeyo yaa waxaan sameynaa programyada ay web developers ku shaqeeyaan sida HTML, CSS, JavaScript oo aan dhowr qaybood u kala qaadnay waxa la yiraahdo Bootstrap ama Tailwind midkood bay qaataan database-ka dhinaceeda waan barnaa MySQL iyo SQL aan barnaa waxaan kaloo barnaa dhinaca Linux-kana waan barnaa si mataqaana Linux knowledge loo baahan yahay waxaan sii barnaa marka React wax la yiraahdo ama Vue.js midkii markaas macalinkiisa u joogo TypeScript aan barnaa waxaan barnaa testing frameworks like Jest iyo Cypress aan barnaa marka waxyaaba aad u fara badan baan barnaa aan ku diyaarinaa kadib baa markaas ay work experience-ga aadaan qofkaas marka front-end developer ayaad u tababarteen front-end developer buu noqonayaa frameworkyada ugu wanaagsan ee JavaScript hadda aad dadka bartaan maxaa kamid waa Vue.js waa React Angular waan samayn jirin laakiin waan joojinay because it's dying out adugu intaas way dhinaca backendigana Node.js aniga horta shakhsi ahaanteyda 20 sano waxaan maleynayaa 10 iyo dhowr sano waxaan kusoo shaqeynaya Java backend Java developer ma garatay oo xataa applicationada wakii waa xidhi jireen Java ME applications inta mobile ay soo bixinin Android iyo iOS ay soo bixinin waxaan ku dhisi jiray mobile apps ku dhisi jiray xataa Java ga dhexdiisa ku dhex jiray Java ME wax la dhaho marka waxa ugu fudud oo qofku baran karo waa JavaScript programming ugu dhow iyadana waxaa kaloon sameynaa hadda data science-na waa sameynaa oo dhinaca qofkii data science-ku xoogaa marka qofku advance noqdo xoogaa statistics iyo mathematical sida linear algebra waxaase loo baahnaanaya laakiin waa haddii aad shirkada waaweyn oo bahashi u shaqeynaysa laakiin just to do the data analysis-ka iyo data bahalkii adiga all you need is Python iyo dhowr library oo sida mataqaana Panda iyo dhowr library oo mataqaana loo isticmaalo oo Python ka mid ah taas marka waa dhinaca Pythonka iyada laftigeeda carruurta yararka waxaan barnaa waxa la yiraahdo ethical hacking oo sida isku difaaci lahaayeen waa carruurta horta ugu badan waxyaabaha aan barnaa from robotics aan barnaa to ethical hacking to data science to even cloud engineering to software development back-end development front-end development mobile app development حتى mobile apps way sameyn karaan Flutter iyo waxay ku sameeyaan inta badan React Native marka okay let's go to marka back-end and back-end aan dul tagnay iyaduna maxaa framework-yada aad backendiga the three popular horta ugu caansan hadda Node.js-ka iyo Python Python-ka siba dhinaca marka maaragtay Django ama Flask waxay isticmaalaan loo isticmaalo Java was tii ugu khatarsan ma garatay problem with Java aniga Java 20 sano ku dhawaada ku soo dhex jira waa midka ugu badqan ugu cilmiga badnaay laakiin shirkad walba oo cusub hadda programyadii hore way ku sameynayaan laakiin programyada cusub ma rabaan waxay rabaan wax very lightweight ah sida mataqaana Python iyo Node.js oo kale rabaan inay ku sameystaan backendigooda and they're getting better much better mataqaana sida Java is like enterprise level application si aan u noqdo backend developer markaan soo barto front end oo aan marka waxaan u baahanay Python inaan barto laba option haysataa shirkad walba oo aad u shaqaysid
horta isku shaqay qabtaan wax oo dhan ba lagu sheegay ama Java ka ahaado ama Python ka ahaado ama Node.js ama Ruby on Rails ama .NET hadda isticmaalaysa C# wax oo dhan ba wax aad isku shaqay qabtaan ma garatay waa adoo raba inaad meel aadid ama Land Cruiser kaaga qaado ama Toyota ama TikTok maxaa la TikTok baa yartahay bajaaj ka qaado meesha ujeedku waa inaad meesha tagtaa marka waxaasoo dhan isku shaqay qabtaan laakiin shirkadaha qaarkood yaa policy kala ah ay ku leeyihiin anaga developerska waxay u badan yihiin Python bay yaqaanaan so backendigeenu Python buu ku shaqeynaya developerskeenu JavaScript bay yaqaanaan so backendigeenu Node.js buu ku shaqeynaya marka shirkadda policy-gay degsato waxaa laga yaabaa inaad Python soo baratid oo front end developer ahaan aad shirkadda ugu biirtid ma garat ay ku yiraahdaan okay anagu Python ma isticmaalo Node.js baan isticmaalnaa baro inay ku yiraahdaan baa laga yaabaa marka ma kugu adkaan doonto horta waxa inta badan inta u sheegaa qofku haddii conceptska u fahansan programmingka sidiisaba syntax ma aha waa concept haddaad conceptiga programmingka fahantid sida masalan loopska oo kale data structureka oo kale algorithmska wixii dhan markaa fahantid yaad syntax luqad ku apply garayn kartaa luqaduhu waa wada isku mid haddaa Python baratid haddaa JavaScript baratid waa isku mid waxay ku kala degan yihiin waxa la yidhahdaa syntaxka waa naxwaha sida qaabka loo qoro bas ay kala duwan yihiin laakiin conceptigi waa isku mid waa adoo gaari Land Cruiser waday haddana mid kale oo Nissan waday steeringkii waa isku mid clutchkii waa isku mid brakegii waa isku mid ma garatay sida u dhaqaaqayeen waa isku mid kala saa kala ma taqaanaa waxaasoo dhan laakiin maxay ku kala duwan yihiin waa syntaxkaas marka haddaad hal luqad baratid masalan JavaScript oo kala baratid Python 80% yaa taqaanaa 80% kaliya 20 ka dhiman waa inta sida waxyaabaha aad soo baratay sida loogu dhiso fartii loogu sameeyo masalan loopkii waad fahansan tahay if else sida waad fahansan tahay wixii dhan waad fahansan tahay laakiin maxaa kaliya u baahan tahay syntaxkooda sidee ahaa kan full colon isticmaala laba dhibcood oo kala sareyso isticmaala kanna muxuu isticmaala curly brackets isticmaala inta kaliya waxa inta wax ku haysan resource badan baa jira meelo badan baa laga helaa library waxyaabo laga helaa adu maxaad aad u isticmaashaa ama aad ku dhiirigelisaa dhalinyarada inaad isticmaasho horta inta badan anaga markii anaga aan joogi jirnay library-gu ah resource-kaaga inaad aada jaamacadda library-gooda ma garatay balse hadda waqti badan oo aad soo marnay sida Stack Overflow Google-ka maanta adduunka waxaa weeye artificial intelligence aa la wareegayba application-ka aad dhisisid kala baro waxaa kuu dhisaayaba aad AI baa kuu dhisaaya adigu assembler baaba tahayba mataqaana meesha coder ka ahaanaysid ma garatay an wayna sii socon doontaa dadku waxay inta badan ay weydiiyaan how AI-gan aad buu noo waalay hawshiisu mataqaanaa in uu shaqadii oo dhan nagala wareegi doono yaan u maleynaynaa shaqada ugu dambaysa uu AI la wareegayo waa midda computerka ma garatay qofka midda computerka waa AI-gu waa computer soo ma computer buu ku shaqeynaya bilaadanka ninka matala oo computer ku shaqeeya waa nimanka injineerada software-ka sameeya iyo bahalkii shaqo kasta ee adduunka aad taqaanid aniga adii waqtigana ma laga yaabo inay dhacdo balse waxay dhici doonto within 40 years time in gawaaridu ay iswadaan in warshaduhu ay iska shaqeeyaan in beeruhu ay isfalaan marka aan ku leeyahay computer baa falaya ma garat in khaatiirta caadiga ee taqaanid la bedelo sheekh hadda waxaan ka shaqeynaynaa waxaa weeye mid yaroo ciyaalka ka mid aan kuu sheegaan tababarayo baa ii yimid markaasuu wuxuu yidhi macalin I have an idea ab baan haystaa abkan maxay tahay fikrad baan haystaa waxaan rabaa inaan dhiso AI sheekh ma garat AI sheekh maxaa weeye wuxuu yidhi madhab kasta oo islaamiya ma garatay ama cilmigiisa iyo bugaagtiisa iyo PDFskiisa wixiisii oo dhan yaan soo qaadaya waxaan baraa waxa la yiraahdo machine learning oo ah in machine learning waxa weeye horta artificial intelligence dhan lagu sheegay waxa weeye waa caqligii bini aadanka oo computer la geliyay sida caadiga ah waagii hore computeradu waxay noo sameyn jireen wax repetitive ah ma garatay albaab isfuraya xirmaya maxaa keenay sensor baa ku xiran cilmi badan kuma jiro laakiin in gaari la wadaa environment-ga iyo situation way isbedelaan caqli badanaa loo baahan yahay kaliya ma inaa clash kasoo kici kartid oo qaban kartid oo sheelray kartid oo meesha tegi kartid maaha in caqligaas la geliyo computerka darawalka caqliga ku jira in computerka la geliyo ya AI la yidhaahdaa ma garat ama warshaduhu inta badan waa iska waxay dhahaan static variables mataqaanaa waa
wax la yaqaanay ku shaqeeyaan ama dhale ama machine bay wareejiyaan ama dhalay sameeyaan ama waxbuu inta ka qaadaa intuu dhigaa waa just shaqooyin la program garayn karo laakiin hadda AI baa lagu daray ma garat oo ah inaama shaqaalihii monitor garaynayaba loo baahnaanimbo in warshadu keligeeda iska shaqaysaba laga tagaba marka adduunkas wuxuu u socdaa heer bini aadanku intuu sariir iska jiifsado computer ay u shaqeeyaan ma garat halkaasa u soconnaa marka dad baa waxay leeyihin marka shaqadaydii waxaa laga yaabaa inaan luus garayo maxaa dhacay computer baa bedelay way dhacday hadda warshad BMW ay leedahay oo Jarmal ku taala waxay isku dayeen fully automated inay ka dhigaan ma garat waagii hore waxyaabo yar bay qaban jireen laakiin warshadu hadda wixii oo dhan dadka bini'aadanka maxaa u soo haray QA wax la dhaho ama quality assurance ma fahant oo checking gareynaya bas mantaqaana check gareynaya waa testing kaliya u soo haray in wixii ay sax yihiin warshadaas fully u shaqeysa inta badanna marka aan anigu cabirayo adduunku meesha uu ku socdo waxaan fiiriyaa dadka hadda lacagta haysta sida ay teknolojiyada u implement garayaan ma garat frontieradan waxaan gidi waxaad arkaysa microwave-yadan hadda guryaha noo wada yaala inta aysan imaanin ka hor dad bay u yaaleen guryahoodaa la fiiriyaa intaas anaga hadda public noo noqonay gaarigana gawaaridan arkaysa waxaan intaysan helin dad bay haystay ma garat dadkaas waa dadka manufacturing iyo warshadaha iyo waxaasii sameeya ayagaa la eegaa siday u sameynayaan saa u predict garaysid adduunka meesha u socdo ma fahant marka inta badan marka aan eegay dhinacan dadkan aan eegay waxa ii muuqata full automation ay soo socoto inay dhici doonto oo AI adduunku la wada wareegi doono laakiin waa in lagu matalaa bini aadanka waa in la matalaa yaa matalaya dadka codingka iyo software developmentiga iyo securityga cyber securityga iyo dadkaasaa matalaya dadka controlaya inay controlka computerkaas ama robotkan hayaan haddii kale biri aduu ku weeraraya markaad ciidamo ka dhigatid oo aad tababaratid mataqaanaa oo aad chip gashatid oo tiraahdo ninkaas dil ma garat markuu kaas dilo soo dhameeyo biri ku soo noqonaya waa adiga marka halkaas bay u socotaa adduunyadu in the next 10 years maxaan arki karnaa AI wallahi qofkii ku yiraahda waa predict garan karaa waa been sababta midaan ku sheegaya ninba 1986 baa ninba waxa lagu yiri adduunka maxaa haray invention ishaq adduunka in wax la invent garayo maxaa ka haray qabiir ah وهذا وحيره wax kale oo adduunka waa 1986 ya wax kale oo adduunka oo la invent garaya ma jiraan bluetooth mo arag infrared mo arag internet mo arag ma garad ma baan marka wax badan oo aan aqoonin yaa jira marka ninkii ku yiraahdo waxbaan saadaalinaya 10 sano 5 sano waa qiyaasi karnaa ma garad laakiin xawaaraha ay ku socdaan wax fiiri hatta waxaad samaysaa fi egta 10kii sanaba xawaaraha aan ku soconno cilmiga bilaadanku wax ku bartaan double bay noqonaysaa heerdan waxaan joognaa maanta qof baadiye jooga Soomaaliya geel la jooga oo mobile haysto ma garad inuu lacag transfer garan karo mobile wallet payment sameyn karo macnaha mobile payment sameyn karo marka taas AI-ga marka la taga waxaad haystaa computer uu hadda ku hor yaala ChatGPT kugu jiraan filaya fashion 4 midka aan waxaan baxda lacag baan bixiyaa soo marka coding badan iyo waxyaabo badan aan ku sameynaa marka waxa igu jira 4 boo hadda laakiin 4.0 prompt aad siisay oo aad la tacajabtay mana xasuusan kartaa oo aad dhahday really kan wada prompt aad siisay ChatGPT oo aad la yaabtay maxaa kamid ah oo wada goynanaya waxay ahayd horta code badan ayuu noo generate garayaa anaga markaan ku shaqeynayno ma garat ardayda hatta waxaan hadda bilaabay hatta development waxyaabaha casharada aan barayo in arday kugu soo biiray 2 week hor maanta uu website haysto oo dhisayo mataqaana oo curriculum-keena ku darnaybo AI in qofku software development with AI baa dhaxnaaba ma garatay marka waxyaabaha ugu cajib waxa weeye dadku ma oga laakiin wuxuu sameeyaa image generation bal waxa ku tiraahdaa ChatGPT waxa ku tiraahdaa generate a Somali girl photo mataqaana wearing qof specific person maahan laakiin description C waxa ku tiraahdaa mana oga xataa ChatGPT af Somali buu fahmaa ma garat ma faham marka waxa weeye image generation maaragtay waxa ajibka ana wala yaabay waxay ahayd wuxuu ii generate gareeyay business ishag business plan ma garat already it's like exactly sidii aan rabay PDFs kiisi folderradii wixii oo dhan gidi ku jiraan ma garat just all I had to do was just in akhriyo
ma garatay bahalkii marka waxyaabo fara badan baa laga faa'iidaa oo aad u fara badan image generation is very good video generation weli ChatGPT aad khatar uguma ahan laakiin wax badan baad mar dhow arki doontaan oo xataa kaamirooyinkani waxaynaan loo baahnaan doonin iyadoo digitaala ma garatay haddii aan ku dhihi lahaa business plan amaba edis ama app edis without AI amaba hadda with AI but less comparison run baan ku sheegaya horta hadda waqtiga aan joogno AI kuma dhisi karo application dhammaystiran ma garat hadduu kuu dhisa xataa qaybaha ka maqan inaad wax kusii dardartid cilmi badan baad u baahanta ma garatay iyo bahalkii wax oo xoogaa aad ku farfarxdo oo mataqaana qurqurxoona wuxuu kuu dhisi karaa laakiin qof developer haddaad tahay waa god sent waa mataqaana gift waay haddaad xoogaa baseka wixii ku jirtid ood xoogaa ka taqaanid aad fieldigii ku jirtid wax aan annaga nagu qaadan jirtay 2 sano 3 sano yaad 2 week ama week ku dhisaysaa maxay yihiin waxyaabaha AI-ga oo hadda adigu aad u isticmaasho aadan ka maarin marka laga soo tagay code generationka in codekii uu noo generate gareeyo waxa ugu dhibka badan oo horta qabsada waxa weeye debugging waxaan dhahnaa ama troubleshooting markii cilad kaa gasho codeka indhaha bini'aadanku cabaar bay ku qaadan inay fahmaan arkaan isagu inta arkaba waxa uu ku leeyahay mataqaanaa weliba ChatGPT baan kala maan ku xajira shirkada kuwa aad u fara badan oo kala jirta waxaa jirta bahal GitHub uu leeyahay oo Copilot la dhaho oo waaba developer kale ku ag fadhiya oo waxa iskale Microsoft hadii aan Copilot GitHub ka Microsoft hoos ma aha ma garatay ayaga iibsadeen marka waaba developer inta badan waxaan sameynaa ay sheeg wax la yiraahdo laba marka productivity in kor loo qaado oo developer badan ay ku joogaan laba la iskugu fadhiisiyaa marka waxay sameeyaan wax la yiraahdo pair programming oo ah in labadan qof maaragtay ay isla code isla sameeyaan inta codeka isla sameeyaan kana nusaac sameynaya kana nusaac sameynaya fikrada isdhaafsanayaan wixii marka productivity-da kor ama wax soo saarkooda baa kor u kacaya ma fahant marka taas bay sameeyaan marka waxyaabaha hadda aan la yaabo waxaa weeye adduunkii o dhan baa waxay ku qoreen AI powered ma garad kii hal scriptio AI ku dara wuxuu ku leeyahay point of sale systemkayga waa AI powered waxyaabaha hadda aan sameynay hadda aan rabo inaan kuu sheego waxa weeye AI-gaas waxaan ku darnay hadda aan dhisayna oo aan wadnaa system website waxaa la sameynaa la yidhaahdo londonjuniordevelopers.com waa londonjuniordevelopers.com waxyaabaha aan u dhisnay waxay ahayd baahi anaga nagu timid waxaa dhisay actually ardaydii ka qalin jabisay bootcampka yaa dhisay hadda gashid londonjuniordevelopers.com haddadan weegan lasoo dhaafaan dhamaynay ma garatay oo hadda profileski iyo dadkii aan xagileyna sababta aan u sameynay waxaa weeye qofkii markuu shaqay dad badan baa olkor anaa shaqada ku raadin jiray dad badan baa igu yimid ma garatay arday badan baa qalin jabisay inaan qof walba la fadhiisto oo aan shaqo raadiyaa waxay igu noqotay wax dhib badan marka waxaan dhisnay systemkan annagoo AI ka faa'iidaysanayna ma fahant systemkaanaan dhisnay oo haddaad furtid waa arki doontaa websiteka markaa gashid baad arki doontaa ujeedkiisu waxaa weeye waa LinkedIn oo kale waa LinkedIn oo kale full profile uu leeyahay video buu qofku hal minute iska duubaya qofkii markuu qalin jabiyo wuxuu video telefonkiisa qaadanaya wuxuu leeyahay waxaan ahay qofkaas waxaan kusoo shaqeeyay waxaas uu upload gareynaya so marka ilaa kontomeeyo 60 qof oo developers iyo profileskooda ku jiraan iyo shahaadooyinkii ay soo qaateen iyo waxyaabaha ay soo sameeyeen marka waxaan sameeyaa ayaga saan qaadaa waa xayeysiyaa shirkadaha u diraa waxaan leeyahay inta anigu mid ula xiriiri lahaa war systemkaana idii hayaa qofka rabtaan kala baxa shirkadaha that's why inta badan ay mataqaanaa aan hadda qorshaha ugu weyn aan hadda wadna waxaa weeye inaan tegayno ilaa iyo dhowr kun oo qof aan rahno oo noqoto platform caan ah oo dadkoo dhanba mataqaanaa shaqaalaha waxaan rajaynayaa in waqtiga ciriiri kugu yahay macalin oo aad galaas leedahay waan ku fasaxaynaa dhawaan hadduu barhale ka noqdo su-aashayda ama su-aalahayda ugu dambeeya waxay tahay data bal iiga waran data analyst iyadu dadka data science hoos imaata data analyst data science waxaa weeye horta dadka shirkada dadku data science khalad bay ka fahansan yihiin dowladaha iyo shirkadaha waaweyn oo datada aruuriya datadaas information badan baa ku jira oo go-aan laga gaari karo ma garatay oo dadka managerada ah ama executive-ka ah caawin karta ujeedku waxaa weeye
in businessku markay socoto data badan bay generate garaysaa datadaas in aad inta dhex gashid aad ka soo saartid aad tirahdid allah wadankan masalan product baad iibisaa dhowr wadan faransa iyo ingiriiska kale iibisaa waxaad ogaatay france in saleskeeda lacagta soo gelaysa aysan badnayn laakiin school mataqaana expenseska ku baxa UK iyo France ay isku mid yihiin the only way aad ku ogaan kartid waa inaad datada analyze garaysaa waa inaad datada saleska fiirisaa waa inaad raadisaa waa inaad wixii expensiga fiirisaa waxaas oo dhan akhbaarta marka sidii looga soo heli lahaa data science yaa la yidhahdaa ma garad si go-aan inta tirahdid hey France branchigeeda hala xiro faa'iido ma soo wado ma garad in la yidhahdo marka waxyaabaha ay ku imaanaysa data science ama datada dowladuhu aruuriyaan ama datada mataqaana ay aruuriyaan shirkaduhu aruuriyaan dad baa loo baahan yahay go'aamada gaar waa dadka data scientistayaasha ama analystaha lagu sheegay iyada laftigeeda waan barnaa haddadan koor bishan hadda aan ku jirno koor 8 koorsaa bilaabanaysa oo pythonka marka hore basickiisa a baraysa ma fahanta marka taas pythonka inta badan lagu shaqeeya waa inaad python barataa waxaa jira data visualization wax la dhaho oo datadii laftigeeda software iyo bahalla kuu sameynaya jiro data analytic tool jiro sida pandas iyo there's a lot of Python libraries jira ma fahant iyo kuwa aakhirka markaan ku dhahayo data science ka xoogaa dadku heer waxaa jira ay markay arkaan wax masaan u adkaa ma garad waa marka ay gaarto statisticska iyo linear algebra iyo waxyaabo mataqaana aad gaartid laakiin waa ka maarmi kartaa waxaa laga yaabaa adduunka hadda waagii hore marka algorithms qorayno annaga gacanteeda ku qori jirnay waa inaad algorithmka waa inaad xisaabta ku wanaagsan hata dadka qaarkood waxay aamini jireen waa inaad computer science ma samayn karin qofaan xisaab ku fiicnayn hadda xisaabba uma baahnid hal tirtiro oo xisaaba iyo wax difficulty uma baahnid libraryyaal baa sameynaya every algorithm kasta SDK ama library baa la geliyey librarygaas sida loo isticmaalo librarygu muxuu yahay waa software wixii la dhex geliyey softwarekaasaad baranaysaa maaragtay sida loo isticmaalayo waa soo gabagabeynayna macalin cyber security waxaad isu kii raacisaa iyo cyber security cloud computing okay aan ku bilaabo mustaqbalkooda iyo halka ay u socdaan iyo wax laga filan kara aan cloud computerka ku bilaabo cloud computingku waxa weeye waa horta waxna waa wax engineering ah mainly waa waxa dhisaysid oo fikrad cusub ah la imaanaysid oo waxaan hore u jirin la dhahayn waa midda software developmentiga aakhirka systemka the only reason why cloud computerska u jiraan waa software developerska waa isku xiran yihiin ma kala maarmaan marka software engineering software developeradu ay softwareka soo dhisaan oo uu diyaar noqdo waa in softwareki adduunka lala wadaagaa sooma yaa qaadaya softwarekii dadkan cloud ka shaqeeya maxay sameynayaan softwarekii bay soo qaadayaan serveraday saarayaan serveradii bay diyaarinayaan wixii oo dhan bay sameynayaan kuwaas waa shaqada cloud waxa weye ayaga maintenance waa shaqadooda waxbay maintain garayaan waxay hubiyaan in softwarekan laftigiisa markay meesha saareen inuu scalable yahay oo mataqaana adduunka o dhan haddii 3,000 oo qof soo gasho iyo haddii 300,000 soo gasho uu shaqaynayo labadaba ma garad in uu secure yahay mataqaana oo bahalkii systemku uusan easy lagu soo gelin ayagoo la shaqeynaya kuwa cyber securityga la shaqeynaya bahalkii waxaas o dhan marka shaqadan cloudka waxaan xasuustaa last year sanadkii lasoo dhaafay UK qofka cloud engineerka ah oo contractorka ah kan software developerka ah 1,000 buu maalintii ku shaqeynay 1,000 pounds a day kan cloud engineerka ana 2,500 ilaa 1,500 ku shaqeynaya sababta ah waxay ku aaday migration time wax la dhaho shirkadahoo dhan xataa wadankan UK annaga waxaan isticmaalayna markaan anagu Somali app ka dhasha isticmaalayay waxay Facebook baa waxay siisay lacag waxay ku guuleysatay Somali app application oo aan sameeyay lacag adigu 80,000 oo baana bay siisay and half of it waxaan ku qaatay hosting like AWS ay u siiyeen ma garatay baan isticmaalayay system marka waxaa jira aan u dhisaynay dowladda UK aan u dhisaynay shirkadii hore u shaqeynayay aan u dhisaynay waxaan damacnay inaan cloud ka saarno waxaan ka hadlayaa 7 sano 8 sano ka horan ka hadlaya sababtoo ah cloudku waa international waa borderless
xaduud ma laha waxaad cloudka saartid UK iyo Maraykan iyo shirkad everything it's exposed to everyone markii hore way diideen sababtoo ah datada ay qabanayso applicationkan aan dhisnay AWS waxaa laga yaabaa inay ku backup gareeyaan America ama China ama meel wadamada ay data centerada ku leeyihiin so marka ayaga sharci waxaa jira UK u yaala oo ah datadoodu inaysan ka bixin xaduudooda baa u yaala so kii bay jabinaysa inaan sameyno waxaan ku qasbanaanay in systemkii aan sida ugu dhaqsiyaha badan kaga dejino AWS-ka ma garatay ama Amazon Web Service-ka uga dejino marka maxaan sameynay sidii baan uga daynay data center ayagu ay leeyihiin oo xaduudda waddankooda aan dhaafsanayn baan ugu shubnay ma garat hadda UK government way qaadatay inay cloudka fuusho as long as shirkadda cloudka iskale ama Microsoft ha ahaato ama Amazon ha ahaato ay guarantee garayn karto in datadaas aysan ka baxaynin xaduud so haddiiba dowladdii wareegtay cloudka u wareegtay shirkadihii maxaa meesha kuma harayaan soo ma marka maxaa qaali noqday qofku in laga raro data centerka oo caadiga u deganaa to cloud loo wareejiyo data waxaa u baahantay cloud architect cloud bahalki waxaas dhan u baahantay in la raro so marka ayagiiba waxay noqdeen lama heli karo so marka taas waa 2,500 qofkii lagu karaysanaya laakiin mid kalaan jirin oo dadku aysan ogeyn markii cloudkii la wareego wixii oo dhan waa fududaadeen batoonna la taataabanay noqdeen ninkan shaqadiisiiba wareejiyey ismaba ogaba shaqadiisiiba wareejiyey so hadda cloudkii shaqadiisii dhulkay soo dhacday hoosay soo dhacday waayo shirkad walba developerkii bay tababaratay ood leedahay adigu developer ma tahay koorso yaroo DevOps ku siinaya sida AWS-ka loo isticmaalo iyo ama cloudka ama bahalkiya markii software-ka aad dhistid adigu hore ka gashaba meesha ilaan wax marka hore ninkan loo baahan yahay marka hore wax la aatagta gareenayo oo hawsha ay dhib badan tahay oo network-kii la sameynayo firewall-kii la sameynayo router-radii kala waxa dhan virtual hadda noqdeen markaas loo baahan markii uu wixii setup gareeyay muxuu meesha ka sii fadhinaya sii baxbaa dhigay marka cloudka shaqadiisu marka intuu qofku noqon lahaa cloud engineer waxaa loo qaataa inuu DevOps noqdo oo shaqadii cloud engineer-ku qaban jiro operations-ka ahayd iyo development inuu ku darsado isku qaatay isaga labaduba inuu labadaba ku darsado waase loo qaataa taas amnigiina dhinacii security okay for one minute macallin dhinaca horta security-ga shaqooyinkiisa ma badna ma garatay cyber security dadka inta badan waxaa dadka aad security-ga uga walwalaya yaa inta badan sida bangiyadoo kale dowladahoo kale oo raba inaysan loo soo gelin mataqaanaa midada kale adduunkao dhan ba hadda dowlad kasta waxay isku diyaarinaysaa waxa la yidhahda cyber war cyber war waa waxa ugu weyn oo waxa imaan doonto waqti bini'aadanku aysan xabad ridinin ma garat ama qof uusan dhimanin sida geymamka oo kale footballka aan kala badana ma aragt yaa laba wadan markay isdagaasho waxa imaan doonta waqti robotyo la isku daynayo ma garat oo ayagoo isdagaalaya haddii robotka ka adkaado waan kaa adkaaday dhegeyso ay imaanayso ma garat cyber warga waa dadka difaaci doona waa dadka cyber security-ga bartay ma garat simple xataa bangigan application marka la sameeyo appka la sameeyo waxyaaba hadda maalin dhaweyto mid yaroo ciyaalka aan tababaraynaya yaa waxaa jirta waxa la yidhahda obfuscation waxaa weeye markaa code ka dhistid qayb ka mida security waa inaad obfuscate ka dhigta waa inaad wereeraysaa qofka ma garatay haddii uu reverse engineering ku sameeyo si uusan codeka u arkinin ama applicationka si u shaqaysa u arkin ama uusan wax data muhiima kala soo bixinin application oo iOS oo reverse engineering ku sameeyo ilay markaas wuxuu keenay codes wahala oo mataqaanaa very expensive haddaa isticmaalno shirkadaha iskale lacag badan ay ka bixiyaan magaratay marka waxaan ku yiri waxaan sababtan ku baritan ma ahayn aniga inaan sameeyo this is illegal ana baxra galaysa waa geli dinaysa ana waa gelinaysa marka dhinaca cyber security waa very interesting waxa hoos imaada ethical hacking kiiba hoos imaada ama ethical ka ahaado ama black hat hacking ahaado ama white hat hacking ahaado ama gray hat hacking ahaado all of them hoos imaada magaratay waa waxa actually kalsoonida siiya ama dawlad ama shirkad markii ay qofkan u barto adigu maxaa baranaysaa ka soo qaad real world adduunkan ag dhigaynaa qofka mataqaanaa cyber security-ga bartay ama hackerka ethical hackerka ah wuxuu la mid yahay qof washman ama qofka security-ga oo bangiga hortaagan waa adoo kaas oo aad siisay sida wax loo xado burglarka koorse aa soo siisay
wuu yaqaanaa waa security wuu ku ilaalinaya at the same time wuu yaqaanaa sida wax loo xado sababta wuxuu rabaa inuu ogaado tuuga imaan doono xadaya bangigan siduu u fakarayo inuu asna u fakaro albaab furan oo arkaya meeshan waxaa weeye chance waxa dhacay laga soo dhici karo waa inaan xiraa marka cyber security-gu opportunity weyn buu leeyahay laakiin barashadiisa easy ma aha because waxyaaba xataa haddaa baratid qasab maaha inaa ethical hacker ahaan u shaqaysid waxa penetration tester u shaqayn kartaa ahaan oo ah in applicationada hadda masalan shirkad baahan la shaqaynayay bangiga aan la shaqaynaynay application bay noo keeneen waxay leedahay applicationkan waxaan rabaa inaad naga eegtaan haye dubai markaan ka shaqaynayay marka waxaan rabaa inaad naga eegtaan in applicationkan la jabsan karo sir kasta oo uu yaqaano qofka hackerka ah qofka ethical hackerkana waa yaqaana ethical hackerka waxa weeye waa qof wanaagsan laakiin yaqaana sidii wax loo jabsado laakiin aan ku xadayn hadduu jabsado xataa oo kuu sheegaya ku dhahaya waxaan waa la xadi karaa iska ilaali wax marka cyber security ujeedkiisu waa saas halkaas hoos imaanaya marka akhirka reporter generate garanaysa oo diraysa leedahay waxaagii waa laga xadi doonaaye war hadirtaanba ilaasho adna lacaga lagu siinaya ma garatay oo waad ku shaqaysanaysaa so roadmap isagana leeyahay aad roadmap uu leeyahay dowladaha ugu waaweyn hadda dadka cyber security-ga sameeya hadda waxaad arkaysaa Russia ama baarkii marka la istagaalo marka la isku dhaco adduunkii digital u noqonaya fiiriya bangiyadii hadda anu jeeb lacagteeda kuma haysto lacagteeda dhan waxay ku jirtaa bangi maanta hadduu flood ama natural disaster dhacdo ama wax weyn dhaco oo internetkii iyo korontadii wixii dhan dhacdo shilna waxaan ku gata ma haysto sidoo kale haddii systemkaas ama raashiyaan ama dad kale oo UK inta soo galaan ay bangiyada daytadooda dhan inta dhex galaan isku dhex yaaciyaan accountka inta adiga kugu jirto inta aniga kugu jirto lama garanayo marka laftigeedu waa qayb ka mid ah dagaalka ugu weyn oo adduunka la galo waay xataa hadda shirkadaha qaarkood waxay ku fakarayaan robot hijacking wax loo shirkadda Mareykanka hadda ugu badan oo ciidamadiisa ugu badan wuxuu ka dhigi doonaa robots ka dhigi doonaa ma garad in aysan u dagaalamaninba qof bil aadan uusan u dagaalamaninba hadda shirkadaha qaarkood sida China kale waxay ku sii fakarayaan robotkan laftigiisa loo haajaa garan karaa si uu asaga qofkii soo sameystaba ula dagaalamo ma garan marka adduunku dadku waxaan yararkaa bay arkayaan laakiin dadka ugu weyn oo investmentiga ugu weyn gashada dhinaca computer waa dowladaha weyn annaga marka wax yar baa naga soo gaaray intaan yaryarkaayo ma taqaanaa haddana saaxiibyaal macalinka waan fasaxeynaa waxaan rajaynayaa in mar kale aan qabano uu naga aqbala because mawduucyada dhan waxaan ka tataabanay percentage like aan xitaa 1% la ekeen soo la xiriir waqtigiisa aad u koobanna waan fasaxi doonaa barnaamijkan aniga iyo macallin Axmed Diini oo ah maamulaha amaba CEO-ga Fast Track Technology Academy intaas ayaan ku soo afmeeraynaa qaybtaan hadduu ay barnaamij ka noqdo waqtigiina saamaha qaybo kale oo barnaamijkan la xiriira ama macalinka unaga ogolaado barnaamijyo kale ayaanu ka soo diyaarin doonaa kulanti dambe xiise leh nabadgelyo fadlan ka mid noqo asxaabta ku xiran Cabdijaliil Show barnaamijkan kan la mid ah barnaamijyo kale si aanay ku seegin mustaqbalka dhow iyagoo badan ayaanu soo wadnaa nabadgelyo haddii aad rabtaa in ganacsigaaga uu cirka galaa amaba aad gaarta malaayiin macaamiil ah oo ku kala nool daafaha caalamka taasi waxaa kuu suurtagelin karta oo keliya ConnectWave waa shirkad digital marketing ah oo u taagan isku xirka ganacsatada iyo macaamiishooda iyadoo loo sii maray dadka ugu saameynta badan baraha bulshada waxaanu wakiil ka nahay malaayiin shacab ah kuwaasi oo diyaar u ah in ganacsigaaga ay qayb ka noqdaan waxaanu ku haynaa xalkii kama dambayska ah la soo xiriir ConnectWave si ganacsigaaga uu horumar ballaaran u helo